arrimaha noocan oo kale ay wax ku dhow way dhacaan cid wax ka dhaxda ma lahan cid lala xisaabtan ma lahan ayadoo la isku jabiyey oo si xun loo dilay ayaa digsi inta lagu ridahay digsi kale lagu daboolay joodina la kor saaray xamdidii gabadhii ilaahay u naxariistay inta la kufsaday dabaq laga soo rido la dilay halku ku dambeeyay kiiskeeda baaridii aw halkay ka baxday gabadhii elman oo dhalay ee xalana lagu dhex dilay xalane waad ogtahay securitygiisa halkay ku dambeysay yaa baaray bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh inta la qorsheeyey dilkeeda ayaa marka la dilay la isku jabiyey digsi la geliyey arrintaasi ma tahay arrin la yaab leh nacam waa arrin la yaab leh haa dilkan ma aha dil uun iska dhacay sida dabcan dadka qaarkiis ay dhaheen ma ahayn sida sugan ee booliiska qaar ka mid ay sheegeen warbaahinta qaar ay soo tabiyeen dil taqriiban la qorsheeyey ayuu ahaa ma ahayn wax iska yimid maxaa yeele jariimada intaa la eg macnaha dembiga intaa la eg dhiiranaanta intaa la eg qof inuu ku kaco waa wax aad iyo aad yani loo qariibsado khaasatan xilliga la sheegay xilli guriga dadka dhan ay wada joogeen nacam marka ma laga yaabaa qofkan ama dadkan sidan sameeyey dhiiranaanta ku sameeyey dad haba yaraatee ciqaab aanan rajaynayn oo isdhahaya macnaha la idinma ogaan doono un ma ahane bal xataa haddii laydin ogaado u fiirso xataa haddii laydin ogaado hee waxba idinkuma dhacayaan maxaa arrimaha noocan oo kale ay wax ku dhow way dhacaan cid wax ka dhaxda ma lahan cid lala xisaabtan ma lahan dilalkii kala duwanaa dhicitaanka ay dhaceen iyo xaaladihii dhacay kufsiyadii iyo dilkii isku jira dhacay mar alla marka dadka ay arkaan in wax laga qaban waayo ayaa waxaa dhacay waa maxay in lagu dhiirado markuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab macnaa qisaasta qof dila annafsu binnafs qofkii qof dila in la dilo qofkii qof ku xadgudbahe in looga aaro qofkii qof dharbaaxa in la dharbaaxo kii ilig jabiya in ilig laga jabiyo kii il rida in isha aslan laga rido marka sidaa la leeyahay maxaa ku jira ma taqaanaa oo faa'iido ah waxaa ku jira inaynan dadka ku dhiiran xumaanta noocaas oo kale ay samaynayaan gabadhan gabar yar iskuul aada ayaa ahayd maalmo la la'aa sida la sheegay nacam maalmo ayaa la la'aa la'itaankaas la la'aana ayadoo haddee la isku jabiyey oo si xun loo dilay ayaa digsi inta lagu ridahay digsi kale lagu daboolay joodina la kor saaray lamana ogaan lahayn haddii familka walwal ay walwaleen sida dabcan la sheegay oo dabcan inta badan aad maqasheen wadaaday u wacdeen familka oo quraan u akhriya xilligaa quraanka la akhrinaya la yidhi dad ka mid ah wadaadadii iyo familkii ayaa waxay hee dareemeen shiir ur marka gurigii la baaray la raadiyey oo inta ka fiiri ma dooliyaa ku dhintay ma sidaana dhacay mise waaba gabadhii halka taalameedkeeda oo ku dhex jirta carabkeeda soo jeeda sidii la yidhi indhaheedana bannaankay ahaayeen nacam meesha waxaad ka arkaysaa ceeji in lagu dilay waxaa la sheegaa sidoo kale mindi in lagu dilan waa la sheegay laakiin carabkaa bannaanka yaala indhahaa soo muuqda dhammaan ceejiyay tusaayaan say ahaataba dembi baara ma ihi laakiin ujeeddada aan kula wadaagayo videogan labaada wuxuu yahay rasuulka calayhi salatu wasalaam xadiid ka sugan inaan kula wadaago zubayr ibnu cadiy ayaa wuxuu u yimid anas ibnu maalik markaasuu u dacwooday wuxuu yidhi anasow dhib weyn ayaa ina heesta xajaaj wuxuu nagu haayaa rafaad aad iyo aad u ba'an dhib aad iyo aad u ba'an meelaan aga baxsanaan garan la'aanahay anasa muxuu yidhi ma taqaanaa wuxuu ugu jawaabay isbiruu sabra fa innahu ya'tii cala annaasi zamaanun maxaa yeelay dadka waxaa u imaan doona zamaan alladii bacdahu asharan minhu zaman ka shar badan kii maanta ay ku noolaayeen kan beriyaa ka shar badnaan doona kan beri dambaa ka shar badnaan doona sidaas haddana nacam sidaa yacni maanta waxa aan arkayno shalayto waxaa laga yaabaa inaynan jirin hadday jireenna wax saaha u weyn oo la arkaayo ma aysan ahayn social media muxuu fududeeya marka in wax walba sidaa loo ogaado wax walba ay sidaan u muuqdaan cid wax si sahlan ku qarin karta inaynan jirin wixii la midka ah markaasuu yidhi hadalka aan idiin sheegaya idinku leeyahayna zamanka imaan doona ayaa kasii shar badan kan kale rasuulkaan ka maqla oo sidaa dhahay uu yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka muxuu yidhi marka wuxuu yidhi zaman walboo yimaado inuu ka shar badan yahay kii ka horreeyana inuu ka khayr badan yahay hee kan ka dambeeya waa sidaa xaaladda aad arkayso oo gaarsiisan macnaha arxandarada intaa la eg qof dhan guriga inta ku nooleed way xiran yihiin sida la sheegay dabcan warbaahinta kala duwan ay sheegtay laakiin arrin xaqiiqatan ma ahan in laga aamuso ay tahay maxaa yeelay xumaanta hal igahooda xumaanta markay dhacdo laga aamuso haddana way dhacaysaa laga aamuso way dhacaysaa hadba inta laga aamuso ayaa dadkii ficilkaa samaynaya ay ku dhiiranayaan nacam haa
laakiin marka wixii laga digo laga hadlo la weyneeyo cid al cidii istahaysay nafsadeeda u qurxinaysa inay waxaa samayso dibay u guranaysaa tusaale maalan tusaale idin siinaya waxaan idinla wadaagay video kan ka horreeyay dabcan taqriiban adii 2 maalmood meelahaas ka hor videogaasi waxaan ku sheegay qiso kooban qisadaasoo wiil ayaa video i dhahay videogaasi ayaan qof hebel ka duubay oo xumaanta igu sameeyey nacam xumaantaasi igu sameeyey anna siriqaan u dhigay waan khiyaanay shirqoolaan u dhigay videogaan ka duubay anigoo ugu talagalay in lagu qabto asoo xumaantaa samaynaya sheekhow waxaasuu igu sameeyey anna videogii waan hayaa waa kana keliya wejigiisa kuma jiro videoga oo qaybo ka mid ah la arkaya sawirkaan raba inaan saaro ee ka waran dembi intee laga iga soo gaaraya ma taqaanaa sababta wiilka uu ila soo wadaagay arrintaasi ma ogtahay maxaa ku kalifay inuu ila soo wadaago nacam waxaa ku kalifay siduu afkiisa ka sheegaayo inuu arkay in badan inaan ka digo waxyaalaha noocaas oo kale ah in badan aan dhaho war waxaas aad samaysay way kuu socon doonaan dembigooda markaad dhimata xataa hee wuu kuugu sii jiri doonaa waa bangigaad waxaad gashatay fiidiyowyada noocaas oo kale baraarujinta aan soo geliyo ayuu arkay markaasuu is yidhi bal arrintan inta ay la eg tahay dembigeeda oo maadaama aan rabo inaan aarsado bal wadaadkaasi aad ka maqashay arrintaasi bal la wadaag hadduu okay dhahana sameey haddii kalena iska daaye saasuu ila soo wadaag soo ii sheegay haddii marka aan u digay aan ku dhahay walaal hadda waad caraysan tahay waxaad doonaysaa inaad aarsato waxa aad sheegtan inuu inta qofka kugu sameeyay ama ay kugu samaysay mar raba wiil ama gabar inay ahayd cidda uu markaasi video ka duub inaan idinla wadaago almuhim qofkaasi maadaama sidaa uu kugu sameeyey waxa basiid oo fudud haddaad tubta qofkaasi cadeen u hayso inuu asaga yahay qofka waxa kugu sameeyey inta kugu sameeyay ku sameynaysaa basiid waa intaas wabillahi tawfiiq waa in soo dhamaatay maxay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله قفكي حمان كوكو سمية إصلاح حمانتي تاسوك وكوكو سمية ونالكو سمينيسا معناها قفا كل أرباحي واد أرباحيسا قفا كجيري أما وحكا جيري سيادكو سمينيسا زيادكو مدري كرتيت انتو كل أرباحو حتى أفوفيت حتى أو مدري كرتيت لا ممنوع مركز الله وحيري فمن عفا وأصلح فأجره على الله لكن عدي عفس لا تمادة وح عفسا إلهي سبحانه وتعالى درتيس أسميسا إصلاح إي وناقنك سميسا إلهي تبارك وتعالى ياك أول مرنايا وناق سينايا نعم سيدا درتي أقول حمانتا نوعا وكلاء حدان لوين إلا وين تهي حدان كور لو قاد إلا ويبا أخادن تهي حدان سيدا الله سمينو ددك إنه هذا الله توسينو لغو براروجين ولا سهلنايا ولا سمينايا نعم دد أيا كوديرنايا أرنتن وحا كدن بيي ama sababta loo sameeyay ama cidda samaysay ilaa ay hadeertan lama sheegin waa arin baarid ku jirta baaride waa baaridii Soomaalida baaride cadaaladii Soomaalida ma laga yaabaa in la helo su'aasha haday weydiis ani waxaan leeyahay maya maxaa waxaan ognahay intaasoo ka horeysay khaasatan videoga hadda ka horeeyay kan aan kaga hadlay arintan bal ku laabo inta aan ku sheegay aragtid waxa ka horeysay dil noocaas ah oo gabar hebelaha ka horeysay oo heblaaya ka horeysay oo heblaaya ka horeysay oo waxa ka hore hebelaha ka horeeyay oo intaas oo qof oo la yaqaano tusaalaha basiidka aan ku seen waxay tahay xamdidii gabadhii ilaahay u naxariistay inta la kufsaday dabaq laga soo rido la dilay halkuu ku dambeeyay kiiskeeda baaridii aw halkay ka baxday gabadhii elman oo dhalay ee xalana lagu dhex dilay xalane waad ogtahay securitygiisa halkay ku dambeysay yaa baaray marka tanna waxay ku jirtaa cadaaladda baaridda Soomaaliyeed booliiska wasaaradda cadaaladda waan ka xumahay wallahi aadan uga xumahay la hawla wala quwwata illa billah aadan uga xumahay ma ahan raja xuma inaan muujinayo xagga dawladdeena ma aha laakiin halkaasaan gaarsannahay haddii lagu dil adaa lagu dilay nacam cidaad ka dhimatay cid ka hadaba hadlaysa cid ku raadinaysa cid baarid samaynaysa cid ku arxan samaynaysa cid haba yaraatay arintaada hee فرح لقليس مجد قفكي والله حري لما ما نكذب العقل بحنا وبالله التوفيق نعم قصان اللي لو ذاقي قصوين اللي لو ذاقي قصوين أي اللي لو ذاقي كلا الدوان سبحان الله إله هو حنا قبل يا أرحم الراحمين إله هو أن أنا إسبدل لما هن إسك إيمانين إسبدل إله نو نحريسه إله نو نحريسه والله مركات قدار في ريسه ما كشكيسا سيستم كنا ما كشكيسا قبيالات سيدا إلا فان ووقشي ما كشكيسا أو ما يسده هذا حالدن هي wanaag ma soo socdo ma isdhaxda Soomaali waxba uma soo dhawaay wanaag ah ma isdhaxda qoys ay dadka qaarkiisa gaarsiisan yihiin ama ay joogaan nacam ay joogaan
waddamadii gaalada ahaa qof ayaa qof wax ku sameeyey u fiirso si walba cadaaladda laga yaaba hee in la leexleexiyo laakiin ugu yaraan wax un xataa hala buunbuuniyo wax un uu helayaa wax un cadaalad u eg marka qaarkiisan waxaa dhacda cadaalad boqolkiiba boqol inuu helo mar boqolkiiba 80 inuu helo boqolkiiba 70 inuu helo boqolkiiba 50 inuu helo boqolkiiba 20 inuu helo marar qaarkiisana sidoo kale inuuna helin yani uu rajaynayaa qofka inuu wax un heli doono ama laga yaabo inuu helo ama qofka Soomaaliya lagu kufsado lagu dilo lagu dhaco hantidiisa lagu qaato wax walba xumaan lagu sameeyo beerihiisa gurihiisa adduunkiisa reerkiisa oo dhan la baabi'iyo wallahi cid ka dab hadlaysa inaysan jirin gaar ahaan iri dadka ficilka sameeyay xumaanta sameeyay hadday yihiin dadkii la yaqaanay kibirka badnaa nacam cidda lagu sameeyay hadday yihiin dadkii la yaqaanay masaakiinta lagu tilmaamay hadday yihiin laakiin waxaan idhi cagsigeeda hal mar dhinacan u gadi ciddii waxaa samaysay hadday tahay dadkii masaakiinta ama laga tirada badnaa hadday sidaas sameeyeen cidda lagu sameeyana ay tahay hee ciddii kibirka badneed ha la dhahayay hadday tahay maxaa dhacaya ilbiriqsi in cadaalad ay ku dhacdo ilbiriqsi qofkii in lagu soo qabto ilbiriqsi inuu dilkii dhaco ilbiriqsi cadaalad oo waxba ka jino feeg adaba xataa baari looma baahan markaas ogow nacam waa tusaale adduunkan horumarka sheegta qof madow haddii la dilo cidda dishay caddaan ay tahay cadaalad waxay u badan tahay in qofkaasi caddaanka u baxsado laakiin qof caddaan haddii la dilo nacam cidda dishana uu yahay ama ay tahay qof madow ah isla maalintii cadaalad waa inay shaqaysaa way shaqaynaysaa shaki kuma jiro nacam waa sidaa tusaalaha waxaa kugu filan wiilkii Soomaaliyeed askariga ahaa naagta caddaanka Australianka dilay weliba xabadda kaga fakatay si kam ah u dilay inta lagu xukumo ogtiin 400,000 iyo intaasoo sano gabadhii caddaanka ahayd mar dhow ayadana wiilkii madowga dishay maxaa lagu xukumay 100,000 iyo waxaanan wax ahayn cadaaladda waa kaasa adduunka asoo sidaa ah ayaa teena waxay tahay mid muuqata qarsanayn dabcan lagu faano la dhaho yani waa kaasa sidaas la sameeyay wixii macna xumaan lagu faano marka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu xaaladeen wax ka bedelo in ummadeena islaaxiyo qulubteena ilaahay subhanahu wa ta'ala nuur iyo wanaag uu noo geliyo ilaahayna u naxariisto xaaladaha noocan oo kala dadku kulli anaaya dhibaatada mar walba dadku haysto ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dul qaado ya rabbal alamin nacam xaalada jira hadda videogan macquul ma iimana saamaxa inaan ka hadlo oo ay kamid tahay gabdhaha ama maamooyinka ama dadka dumarka khaasatan ee kaamanku ku jira kufsiyada loo geysto aanan inta badan la ogeyn nacam taana waan ka hadli doonaa ilaahay idinkiisa maxay way soo badanayaan way jireen laakiin way soo badanayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala حالة لسانها كبدلوا إله نونا حريصه إله نهنوني إله الذنوبتين ضاف إله نونا حريصه يا أرحم الراحمين وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي